munaasabad si heer sare loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay isla mar ahaantaana lagu taageerayay musharaxa madaxweynaha Soomaaliya 2016 hadii Allah awood u ogolaado Maxamed Cabdirasaaq Maxamed asaasi hay'adda Somali One munaasabadan ayaa waxa ay ka dhacday Double Tree Hotel oo ku yaala xaafadda Salisbury ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana ka soo qayb galay dad isugu jiray odayaal dhaqameed culamaa u diin siyaasiyiin aqoon-yahano dhalinyaro iyo ururada haweenka waxaana halka laga soo jeediyay khudbado lagu soo dhaweynayo musharax Maxamed Cabdirasaaq Maxamed waxa ayna ku bilaabatay sida tan waxaan leenahay soo dhawow hadda waxa u socota waa siyaasaddu waaye marka Soomaaliya insha Allah sano dhibaato ka dhacday marka waxaan u baahanahay qof wanaagsan oo waxaan dhibkan umada ka saaro waxaan u baahanahay Soomaaliya inaan horta saafino qofkan waa shakhsi wax buu xukumi karaa laakiin wax bedeli karo waa ma ahan qofkii waa shacabka inuu isbedelo oo yahay oo doonayo inuu u noqdo madaxweyne isagana ballan baynu markaas yeeynaa waa la ballamayna waxa la yiraahdaa ma feefar lahow ama adkaysan dambe lahow waxa weeye marka Cabdirasaaq tacliintiisa isaga sheekayn mayno ninkii galayna waynu naqaanaa waxa galay Cabdirasaaq Maxamed Abubakar baa galay ninkaas galay waynu naqaanaa wuxuu ahaa iyo wuxuu ka sameysnaa waynu naqaanaa waxaan u maleynayaa nin soo musharax guulaysta noqo degma leeyahay meel geographic location leeyahay xildhibaanada Soomaaliya hadda 275 halkii ay matalaan qofna madaxweynuhu markuu yuu matalaan madaxweynaha nimankaas ay dhali doonaan oo maartay abay hooyo noqon doonaan yuu matalaan ra'iisul wasaaraha asagu magacaabi doono yuu matalaan ra'iisul baarlamaanka yuu matalaan nobody marka runtaan isku sheegno Soomaaliya waxaana ugu daran Soomaalida banaanka joogto kuwa ininka ugu daran waayo Abdi Warsan waa dooro kartiin Barack Obama waa dooro kartiin Donald Trump darabtiin waa dooro kartiin Hillary Clinton waa dooro kartiin waad barateen sida wax loo doorto laakiin mu ogoladiin dadkiina Soomaaliya joogan wax doortaan waxaan caawa idin hortaaganahay sidoo kale inaan afkaartaas idin la wadaago taageeradiinana aan helo marka horese aan idin weydiiyay isbedel iyo horumar siyaasadeed oo Soomaaliya ka dhaca ma loo baahan yahay dawlad Soomaaliyeed oo xooggan oo daryeeli karta dalkeeda iyo dadkeeda haddaba si wada jir ah aan ugu heelano Soomaaliya si wada jir ah aan u gaarno guusha aan gacanteena ku keeni karno nabadgelyo iyo horumarna aan ku gaarno heshiis dhab ah iyo dawlad daacad ah caadil ah oo ka fog musuqmaasuqa walaalayaal jidka aan ku gaari karno taas waa labo koow dib u heshiisiin qaran labo dawlad daacad dib u heshiisiin qaran inkastoo ay jireen isku dayaal badan oo dib u heshiisiineed haddana mar walba waxaa xoog la saarayay sidii lagu soo dhisi lahaa dawlad Soomaaliyeed
hadda waxaynu u baahannahay inaan dadkeenna kalsooni ka dhex abuurno taasoo ah aasaaska isku xirnaanta bulshadeenna iyo midnimada Soomaaliyeed shakhsiyan markaan isku kalsoonnahay annagoo dhan kalsooni isku qabno ayaan soo celin karnaa midnimada Soomaaliyeed markaan midnimada Soomaaliyeed haysanno waxaan difaaci karnaa dadkeenna iyo dalkeenna gaari karnaana horumar dhaqaale soo wada duuba fanaaniinta gobolka Minnesota ayaa iyaguna halka caaw waxa ay ka soo jeediyeen heese ay ku soo dhaweynayaan sidoo kale gabay iyo dhaantooyin ayaa iyaguna goobta lagu soo bandhigay dadkii goobta isugu yimina waxa ay la dhaceen khudbadii caaw oo halka ka soo jeediyay musharax Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Awil Nuur Shire TV-ga caalamiga ee Somali Cable Minneapolis dalka Mareykanka